بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبيه الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa jira في آونة الأخيرة waayada tan dambe waxaa dad badan oo xataa dhalinyaro ah iyo dad waaweyn iyo dad fara badan oo Soomaalihi ay ka hadlaan qaa'id. waxaa laga yaabaa qofba aragti gaar ah qaa'idka inuu ku sheego, laakiin inagu qaa'idka aynu tilmaamayno rabnaa waxa weeye qaa'id muwasafaad gaar ah leh. waa qaa'id xadidan oo ku xadidan sharciga Ilaahay, waa qaa'id xadidan oo ku xadidan taariikhda iyo maxaa ku dhahdaa namuudajka islaamka. مثلا qaa'idka qof muslim ah oo rabi kara waxa weeye in qaa'idkaasi yahay qof iimaan leh maxaa ku dhahdaa Ilaahay rumaysan subxaanahu wa ta'ala. oo qofkaan iimaanka lahayni mahma uu isku dayo inuu wax hagaajiyo waxaynu ognahay wax badan ma hagaajin karo. waxaan rabnaa qaa'idkeennu inuu yahay qof raacsan nabi Muhammad calayhi salaatu wasalaam oo laga helo sifada ittibaacu rasuul. al-iimaanu billah markaynu ka helay qaa'idka waxaanu ka rabnaa inuu noqdo qof nabiga raacsan calayhi salaatu wasalaam oo waxa weeye qadaayaga iyo waxa uu ka hadlayo wuxuu wax ku xukumayo iyo wuxuu rumaysan yahay al-halaal wal haraam, xaraamta iyo xalaasha markay noqoto, inuu wax cadaalad ooga markay noqoto, qof mastarkiisu uu yahay waxyiga Ilaahay oo ka qaata shariicada islaamka oo ku raacsan nabi Muhammad calayhi salaatu wasalaam. waxaan rabnaa qaa'idkaasi inuu yahay qof naftiisa taskiye ay leedahay oo naftiisu tahaaro ay leedahay oo qaa'id muslima ah oo doonayo ku dadaalaya istiqaama, qof tawaaducaya, qof amaano leh, qof ihsaan leh, qof sidqiga yaqaana oo Ilaahay u tilmaamay ittaqullaha wa kunu ma'a saadiqiin, sidqi leh oo runta sheegi kara, qof sabir leh oo haday dhibaato soo gaadho sabri kara oo sidoo quraanku u tilmaamay sabriga fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul ba nabi Muhammad lagu yiri calayhi salaatu wasalaam. qof tawaaduci kara oo aan dadka iskala weynayn oo kibirsanayn oo nabiga calayhi salaatu wasalaam habar baa intay gacanta qabsato bay meeshay rabeen la istaagi jirtay, waxay ka fushan jirtay danta ay rabto isaga oo gacanta hadayna sii dayn isagu aan gacanteeda sii daynayn oo aan ka dhaqaaqayn hadayna iyadu ka dhaqaaqin. waxaan rabnaa tawaadu, waxaan rabnaa raxma iyo naxariis, qof ummadda uu u talinaya shafaqa ay u hayso oo waxa weeye ka cabsanaya ayo Ilaahay raqiibu yahay subxaanahu wa ta'ala. waxaan rabnaa qof dakiya oo caaqila, waxaan u baahannahay qof jiddiye leh oo go'aan qaadan kara, waxaan u baahannahay qof aqligiisa iyo diintiisa iyo akhlaaqiyadkiisa iyo dhaqankiisa tawaasun ay leeyihiin oo miisaaman yihiin. waxaan u baahannahay qaa'id jur'a leh oo geesinimo leh oo shujaac ah runta sheegi kara sidii nabigu runta u sheegi jiray calayhi salaatu wasalaam. waxaan nahay dad doonaya sidii nabi Muhammad wuxuu hogaamiyay in loo hogaamiyo calayhi salaatu wasalaam, laakiin hogaamiye aan run sheegayn kulla inuu najaxa lagama yaabo. marba maalin walba si cusub uu dadka mahlaka u gelinaya, marba dhinac cusub uu ka soo wareega, laakiin qaa'idka naajixa waxa weeye ku nabigu tilmaamay oo ah inna raa'ida ninka hogaankihi la yakdhibu ahlahu, dadkiisa been uma sheega buu nabigu calayhi salaatu wasalaam. adigu laftaadu haddaad marka horeba been u sheegayso bulshada aad matalaysay marna inay kugu daydaan ha sugin. adigu horta marka hore qaa'id doonaysa inaad noqoto horta naftaada waa inaad dagaal la gashaa, waa inaad noqotaa qof rabbaysan oo tarbiya leh, waa inaad noqotaa qof akhlaaq leh, waa inaad noqotaa qof qiyam leh, waa inaad noqotaa qof ahdaaf iyo mabaadi' loogu soo hagaaga leh, waa inaad noqotaa qof gaayadiisu tahay irdaa'u rabbil caalamiin subxaanahu wa ta'ala. taasaad bulsho ku badbaadin kartaa oo aad in qaadin kartaa. marka qaa'idka mashhuudka ah ee aan doonaynay waa qaa'id waxdada ummadda ka shaqeeya, waa qaa'id ka shaqeeya cadaaladda ummadda, waa qaa'id aan eexda aqoonin, waa qaa'id aan jeebkiisa aqoonin ee jeebka ummadda oo dhan ka warhaya, waa qaa'id baahida ummadda ka jawaaba ee aan baahidiisa kaliya ka jawaabin. laakiin qiyaadada maanta caalamul islaami ka talisa waxa taqaanaa iyaga iyo dalka midooba. hadduu qaa'idku xanuunsan yahay dalku wuu xanuunsan yahay baa lagu leeyahay, hadduu qaa'idku lacag laayahay dalka lacag laa baa lagu leeyahay. wadankii waa isaga, isaguna waa wadankii, ummaduna waxba lama wadaagtee waxaad moodaa inuu iska yahay boqor keligii taliyaa ama iqdaaci oo isagu dhulka iyo dadkaba leh. intaas ayaan kelmadayda ku gabagabaynaya. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.